أشهد أن لا لا إله إله إلا الله إلا الله وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. ما شاء الله. القلب لكم تترى بالحب سرت في الأرواح والطير يغردكم مرحى بنشيد. إسلامك أركان قولية، أركان الإسلام هي أركان الإيمان. أركان الإسلام كوحوي نقفك الشهادة قراء أو تعيمك كسوق الشيء. أفر كلنا ويدبس عضانا وصلاة سكذا صونك يحجك أنت أي كرتو. ها أنت أوشي. حبش يسلمنا أمس أركان يعني صلاة إنه هنا يالشوه كسبوها إن سوم يالش سوم يسبلك حج يالش الله هنا تعالش لا تتكلمش إن من سفر حتى هنا تعالي يالش استكلوا وحلقاتهم يا أركان الإيمان كأولها. أركان الإيمان دمو سدست أن تؤمن بالله إن الله رميسو بالله إن تماما رسولك سنة محمد بالنبي محمد ملائكة إلهي ملائكة وملائكة كتبتي إلهي سودجي وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. قدر دمو تاكوالش. أي جزاكم الله خير. سلام إن شاء الله موفق إن شاء الله. الله يكون على يدك أنا خير جزاكم الله خير الجزاء ما أنت سووا بنتي. عاون وحنو لنا هاي إلهي وأديك وين إله الله أقول هذا الله دوني مشي أديثه هبين كخير كبدن له صار إني كسب بيرته إسلامك إله وهاب كان وحنا قبرينا إنه السجو يدي يقار كلام أمثال كذا أنا إله سبحانه وتعالى وينابضي أو إلهي ينهنوني أنتوا هنون للضلبي علماء إذا شرفت المحله إلهي هيدي بركة جزاكم الله خيرا كل مركز كخير وأنكو هودنا وحلقوا سهرتي تنين أنت هل كهلي جيين كل وخير إلهي بنقوم هنقنا جهدي يدل دمانتني أين وضع قلي إلهي وحقول هذا إن أنت لبعض نقطة إنوتي ما ديت هذا الكيجية وحلينا هاي إلهي سبحانه وتعالى كسجو إلهي هأقول لك ما أنت بداية ونكتن نصيب إلى هذا هاي وحسقوا بيجرب سبحانه وتعالى يدو هنون كيوسي يدو اللي بيشرو habeenadii ilaahay uu ku dhaartay walayaalna 10 waliba ay caawatay sagaal oo ay birka u noqonayso iyadoo oo yoom al-arfa ay tahay maalintii koowaad iyadana muslimimadeeda waynu u ducaynaynaa ilaahayna waxaanu u baryaynaa inuu xaq ku sugo inanka ay maanta ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyadoo gurigiisii joogto oo u shaqaynaysa ilaahay sabab uga dhigay inay u sheegato barnaamijka oo soo kaxeeyna waxaan la ilaahay ku barakeeyo abaalkaagana jannaalka Allah ka dhigo waxaan baaq u dirayaa qof kasta oo haysta shaqaale ama la asxaab ilaahay subxaanahu wa ta'ala aanu tusin wali xaqa inay ku dadaalaan inay ducaad noqdaan oo ay dadka u sheegaan muslimnimada iyo wanaaga aynu wada ducaad noqono ilaahay subxaanahu wa ta'ala baa ina amray inaynu nafteena iyo nafaha walaalihiin bacdaab ka badbaadino inaynu diinta ku baaqnana waxaynu ku noqonay dadka ugu wanaagsan oo ilaahayna yiri waxa tihiin khayrul umma marka ummadda aynu ugu yeerno islaamnimada waxa laga yaabaa qof inuu qof u shaqeynayo 10 sano 8 sano 5 sano laakiin aanu islaamka u bandhigin marka dadka inala joogo oo ciida ka badan islaamnimada ha loo bandhigo oo lagu guuleysto nabiga sallallahu alayhi wasallam adduunka waxa ka khayr badan iyo waxa yaala iyo geelactasba ka khayr badan ilaahay inuu adiga sababtaada uu qofku ugu soo hanuuniyo waxay ka khayr badan tahay geelkiisa cad marka waxaan ku baaq u dirayaa qof kasta uu garab joogo qof aan ilaahay hanuunkaasi tusin inuu ugu baaqo oo uu ku guuleysto ilaahay inuu isaga abaalkiisa janno uga dhigo waxaan leeyahay culimadeedana jazaakumullahu khayran inanta saarana waxaan leeyahay Allah ha xifdiyo ilaahayna ha ugu wado